qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay Nebi Luud iyo wixii dhex maray isaga iyo qoomkiisa. Shakhsiyadda iyo qofka uu ahaa Nebi Luud qaabab kala duwan ayaa looga hadlay, laakiin qoomkiisu dhaqankii xumaa ee ay ku dhaqmeen iyo cadaabkii ku dhacayba waa wax ay dunidu si weyn uga warqabto. Waxa ay ku kaceen dhaqan aad u foolxun oo aanay jirin cid iyaga ka horraysay oo ku dhiiratay. Nebi Luud calayhi salaam iyo qoomkiisuba waxay ka mid yihiin qisooyinka lagu wariyey kitaabka Alle. 18 suuradood oo ka mid ah Qur'aanka Kariimka ayaa lagaga waramay qisadooda. Nuxurka qisada inta aynaan u gelin bal aynu barano abtirsiga Nebi Luud calayhi salaam. waa Luud binu Haaraan binu Taarix binu Naaxuur binu Saaruukh binu Raaquub binu Faalix binu Caabir binu Shaacir binu Arfaqshanda binu Saam binu Nuux calayhi salaam. Waxaa la rumaysan yahay inuu noolaa 175 sano. Dhammaan kutubta kale Nebi Luud waxay ku sheegaan inuu ahaa qof dhaqan wanaagsan leh oo dadkii saalixiinta ee xilligiisa ka mid ahaa. Islaamkuna waxa uu inoo cadeeyay inuu ahaa nebi ka mid ah nebiyadii dadka loo soo diray. Luud calayhi salaam ayaa ku dhashay magaalada Baabil ee waqooyiga Ciraaq. Markii aabihii Haaraan uu geeriyooday isaga oo yar waxaa kafaalo qaaday awowgii Aasar. waxay isku meel ku wada noolaayeen adeerkii Nebi Ibraahim calayhi salaam. Luud iyo Nebi Ibraahim waxay ahaayeen kuwo mar waliba rafiiq iyo saaxiib isku ah, aadna isku jecel. Markii Nebi Ibraahim dabka lagu riday qofka kaliya ee rumeeyay wuxuu ahaa Nebi Luud calayhi salaam. Kadibna waxaa rumaysay xaaskiisii Saara. Nebi Ibraahim markii uu dagaal adag iyo diidmo kala kulmay waxa uu go'aansaday inuu ka hijroodo dhulka Baabil. Waxa uu u hijrooday dhulka Kancaan oo ah deegaanada maanta loo yaqaan Falastiin iyo Jordan. waxaana sii raacay xaaskiisii Saara iyo wiilkii uu adeerka u ahaa ee Nebi Luud calayhi salaam. waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee ficilkaasi foosh xun la yimaada. falkan guracan ayaa dhexdooda xoog ugu faafay ilaa darajo ay gaadheen inay iskugu faanaan, bannaankana ula soo baxaan. suuqyada dhexdooda ayay raggu ficilkaasi foosh xun ku samayn jireen, iyada oo ay dadku u soo daawasho tegi jireen. waxaa kaloo intaasi u sii dheerayd in dadka deegaankooda safarka ku soo mara ay ficilkaasi ku samayn jireen. dadkuna aad ayay uga baqi jireen in deegaankooda safar ku maraan ama ay u martiyaan. koox ayay isku raaci jireen, iyaga oo ragga kuwooda aan magaalada ka soo jeedin ama aan meel looga boqo jirin inta guryahooda ugu tagaan ficilkaasi xun ku soo samayn jiray si xoog ah. Luud calayhi salaam markii wacdigii waanada ka badiyay waxay ka dalbadeen inuu deegaanka iskaga baxo. Nebi Luud markii uu arkay inay xaaladdu taagan tahay meel halis ah ayuu eedo bariyay. waa halka uu ka bilowday geediga cadaabka qowmu Luud. Alla waxa uu soo diray 2 malag oo leh muuqaal bani aadam oo dhalinyar ah oo aad u haybad iyo haaneed wacan. waxaa loo soo diray Nebi Luud calayhi salaam isagoo aan ka warqabin inay malaa'ig yihiin. haddaba ma ognahay halka ay marka hore ka yimaadeen ama ay soo mareen ka hor inta ayna soo gaadhin Nebi Luud calayhi salaam. 2 malag waxay soo mareen Nebi Ibraahim waxayna kala hadleen oo ugu bishaareeyeen 2 arrin. waa tan koowaad in Nebi Ibraahim xaaskiisa Saara ay dhali doonto wiil lagu magacaabo Isxaaq, gadaashiisana Yacquub oo labadooduba ay noqon doonaan nebiyaal. arrinta labaad ee ay ugu bishaareeyeen ayaa ahayd inay u socdaan deegaanka Siduum si loo soo ciqaabo qoomka halkaasi ku nool. Nebi Ibraahim markii ay malaa'igtii warkaasi u sheegeen aad ayuu ugu baqay Nebi Luud calayhi salaam. wuxuu 2 malag ku yidhi waxa halkaasi ku nool Nebi Luud iyo qoyskiisa. waxay ugu warceliyeen waan ognahay magaalada iyo inta ku nool. 2 malag ayaa ka soo dhaqaajiyay meeshii uu joogay Nebi Ibraahim iyagoo afka ku aadiyay dhanka magaalada Siduum. markii ay magaalada galeen waxay toos u abaareen Nebi Luud isagoo aan ogeyn waxay yihiin ama sababta ay yimaadeen. Nebi Luud waxa uu ku mashquulsanaa xilligaasi beertiisa oo waraabinayay. 2 malag waxay ka codsadeen inuu martigeliyo. Nebi Luud waa uu ka xishooday inuu codsiga martigelinta ka diido. waxa uuna caan ku ah tixgelinta deeqsinimada iyo martisoorka. Nebi Luud oo ka warqaba xaaladda foosh xun iyo dhaqanka xun ee yaqaanaan qoomkiisa dartiis, waxa uu u cabsaday martidiisa. sidaas darteed ilaa uu gobolku ka dhacayo ayaa uu la sugay si uu mugdiga ugu dhex socdaan oo aan martida loo arkin. kadibna uu guriga sidaasi ku geeyo. markii uu guriga keeyey martida ayaa uu xaaskiisii ka codsaday inay qariso martida oo aanay cidna u sheegin in guriga marti u joogto. laakiin xaaskiisu waxay lahayd dhaqanka qoomkeeda, waxayna ka mid ahay dadka sida joogtada u dhiba Nebi Luud. Nebi Luud waxa uu habeenkaas xaaskiisa u sheegay inuu iska cafinayo wax walba oo dhibaato oo ay hore ugu geysatay, bishardi inay qariso martida caawa u joogta. haweenaydii waxay Nebi Luud hortiisa ka ballan qaaday in ayna cidna u sheegi doonin, balse maxay gadaashiisa ka samaysay. ragga qoomka joogay waxay lahaayeen baaq ay isku afkartaan ama tilmaam ay isku fahmi karaan. tilmaantaasi waxay ahayd qaac ayay ku shidi jirtay guriga dushiisa. kadibna inta ay raggu arkaan ayay fahmi jireen in Nebi Luud ay marti u joogto. markii ay guriga soo galeen 2 malag ee haybadda bini'aadamka lahaa ayay haweenaydii dab kor ku shiday si ay qoomka ugu baaqdo.
mar allaale markii ay arkeen qoomku waxay si toos ah u soo abaareen guriga nebi luud iyaga oo ka dalbanaya inuu martida u soo saaro nebi luud waxa uu isku dayey inuu ka badbaadiyo martidiisa xitaa waxa uu soo bandhigay gabdhihiisa si ay u guursadaan raggana ay iskaga daayaan laakiin raggii waxay u sheegeen in aanay gabdhihiisa u baanin keliya ay rabaan ragga u soo martiyey markii uu nebi luud u calwaayey qoomkiisii waxa ugu eed sheegtay rabbigiisa inuu yahay qof tamar yar qoomkiisuna ay u badheedheen dhaqanxumatii ugu darnayd dulmi iyo xadgudub aan loo aaba yeelin alla si degdeg ah ayuu uga jawaabay waxaa laga hadalsiiyey labadii malag waxayna u sheegeen nebi luud sida xaqiiqadu tahay iyo ujeedka ay u socdaan waxay ku yidhaahdeen waxba ha ka baqin annagu waxaan nahay malaa'ig la soo diray halkaas ayuu cadaabkii ka bilowday qaybtii ugu horraysay ee cadaabka ayaa lagu riday qoomka markii koowaad aragga ayaa la tiray waxna way arki waayeen waxayna goobtii ka tegeen iyaga oo nebi luud ugu goodinayay inay berito tallaabo adag ka qaadi doonaan nebi luud malaa'igtii ayaa ka dalbatay inuu habeennimo ka baxo deegaanka suduum nebi luud iyo labadiisii gabdhood ayaa magaalada bannaanka uga baxay waxayna beegsadeen deegaankii u alle amray inay galaan ee sawcar laakiin xaaskiisii ma aysan raacin oo waxay ku hadhay qoomkeeda nebi luud intii ay waddada ku sii jireen waxa ay maqleen dhawaaq aad u xoog badan oo tilmaan u ah in ahlu suduum cadaabka ku soo degay waxaa la sheegaa inuu deegaanku ka koobnaa 7 magaalo oo ay ku nool yihiin 4,000 oo ruux 400 oo ruuxna waa la sheegaa waxaa bilowday dhagxaan cirka looga soo tuurayay dhagxaantaasna alla waxa uu qur-aankiisa inoogu sheegay inay ahaayeen kuwo kulul oo qofka hore ka dilaya marka ay ku dhacaan qofkii ugu horreeyay ee dhagxaantaas lagu dilaana waxay ahayd xaaskii nebi luud laakiin cadaabkii halkaas miyuu ku joogsaday maya alla waxa uu malakul jibriil amray inuu baalkiisa ama gacantiisa uu hoos ka soo geliyo deegaanka iyagoo dhanna uu kor u qaaday kadibna uu hoos u gembiyo dhulka qaybtiisa kore ayaa hoos la mariyey deegaankii dhannaana malakul jibriil hal mar ayuu dabagediyey sidaas ayaana lagu cadaabay dhulkii deegaankaas alle waxa uu ka dhigay dad dhimatay biyaheedana lama intifaacsado xitaa dhulka ku hareeraysan khayraadkiisa waxba laguma qabsado keliya magaalada cadaabkaas ka badbaaday waxay ahayd magaalada sawcar waa magaaladii uu ku magan galay nebi luud calayhi salaam halkaas ayuu iskaga noolaa oo uu alle ku caabudi jiray ilaa uu ka geeriyooday